xafladan ballaaran uu soo qabanqaabiyey maamulka degmada warta nabadda oo lagu taageerayay guushii ciyaartooyda gobolka Banaadir ay ka gaareen tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay garoonka Engineer Yarisow ayaa xalay lagu qabtay tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha degmada warta nabadda Saynab Maxamuud Warsame Saynab Xaabsey oo lahayd qabanqaabada xafladda ayaa ka hadashay guushii kooxda kubadda cagta gobolka Banaadir ay ka gaareen tartankii maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. hambaliyo waxaan rajayn doonaa insha Allah inaad koobkan difaacdaan maadaama ay tahay gobolka Banaadir hooyadii dalkana mar walba in macsalaam la dhaho xogaha waa laga qurxan yahay oo koobka meel kale la geeyo waxaan leeyahay cid walba oo jecleyd inay qaadato hooyadii ay idin qaadato hooyana wax walba oo wanaagsan waa mid loo huro waxaan leeyahay isboortigu ma ahan siyaasad isboortigu ma ahan xifaaltan kale isboortigu waa farxad iyo isdhaxgal iyo isqadarin iyo maxaa la yiraahdaa isku kalsoonaan dhalinyaro inta kale ee sida siyaasadda u fahmay waxaan leeyahay isboortiga aad qalad ka fahansantihiin isagoo Barcelona oo ciyaarayo oo wuxuu aadaa Real Madrid isagoo degan Manchester oo wuxuu imaadaa Italy inta waxa inooga filan ciyaartooydeena ayagoo qaar kamid ay ka soo jeedaan Baardheer iyo Gado Jowhar Beledweyne iyo Gaalkacyo ayay haddana u ciyaarayaan gobolka Banaadir. tababaraha xulka kubadda cagta gobolka Banaadir Daadir Aamin Cali ayaa xafladda ka sheegay guushii ay gaareen xulka gobolka Banaadir in ay ku timid taageero xoog leh ay ka heleen madaxda sare ee maamulka gobolka Banaadir. gobolka Banaadir wuu guuleystay laakiinse waxba ka dambeeyay oo ana ka horeeyay in macnaha hooyooyinkeena iyo dhammaan mas'uuliyiinteena in garab taagnaayeen mar walba أنا كهلا عدك معلمينتي عيارتويدا وحن مرنبا إلى بدونين إن شاء الله لمان معمولياشينا جود سيد وذدين هنا سيد نوجر بيستاجين سيد ما بسمة ما جواهر قدومي زينب all of them والله ورترنتي وين جرب استاجين إن نقول السنة وحكيه الرجال إن نجرب استاجان هري هبين إن لجوجان أنا وحن حسوسني هوتل كأنت كجرنا هبيني مالنا عيجا وقت قد نهوري gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Marwo Basmo Caamir Shakeeti oo ka hadashay gabagabadii xafladda ayaa sheegtay inay ku rajo weyn yihiin sanad kasta inay ku guuleystaan xulka gobolka Banaadir tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxaan rabaa ciyaartooyda gobolka Banaadir koobka quruxda badan habeen badan loo soo jeeday waqti badan loo soo jeeday maalmo badan loo orday 10 sano kadib inaan hantinay koobkan quruxda badan ee ku ilaalinay magaca iyo sharaftii karaamada qof kasto muwaadin Soomaaliyeed oo caasimada ku aftirsada waxaan rajaynaynaa sanado badanna inaan sidaas oo kale dadaal badan ugu bixino aan sidaan oo kale u ilaashano sida caasimada hadda loogu celin doono ku celin doonaan wiilashan quruxda badan Allaha ka yaale cadawgana Allaha ka qabto waxaan leeyahay dadaalka ka sii wada gudoomiye Zeynab waa caawada furtay balanqaadkii aan u balanqaaday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciyaartooyda gobolka Banaadir inay ku dalxiisayaan magaalada Muqdisho degmooyinkeeda kala duwan 17 degmo iyo 3 deegaan inay u dalxiis tagayaan. Diiban Abdi Warbaahinta Qaranka Muqdisho.